السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تضباطكن وحمركلي إركيس كشريري هذا الحين بدن والله حديد حقوق هوسي أو تباحي قرشة والله ديارنا يحديد دحمر الصومالية يا إسرائيل إسقى أول كان النقضي مد أي سوين وقاضي دجان وربهين إسرائيل يدلك عربته إن كسته أو مسؤولين الصومالي ذو أي بينيين وركاسي هدنا وورئيس صوترية أو أن إلا إمكله بين حقيقة ذو ذا رسمي كنالك أفراد إسرائيل وربهين كان حينوت iyo waliba Jerusalem Post waxay dhamaantood daabaceen xogo ku saabsan xiriir hoose oo u socday mas'uuliyiinta dawladaha Soomaaliya iyo Israa'iil halka dhinaca kale warbaahinta dalalka Carabtu ay iyana xogtan aad u baahiyeen maalmihii ugu dambeeyay dhinaca Soomaalida wali ma jiro warbaahin dabagal ku samaysay ama xogo dheeraad ah ka keentay qadiyadan oo in badan oo Soomaali ah danaynayaan bal in ay wax ka ogaadaan labadii maalmood ee ugu dambeeyay waxaan isku dayeynay in aan baaritaan ku sameeyno bal hadda xogahan sida ay u soo baxeen goorta ay ku soo beegmeen ujeedada ka dambaysa iyo sida ay wali mas'uuliyiinta Soomaalidu u beeninayaan gabi ahaanba jiritaanka warkan waxa kale oo aan eegi doonaa doorka warbaahinta Israa'iil sheegtay in ay arrintan ku leeyihiin wadamada Turkiga iyo Imaaraadka Carabtu inaga oo sidoo kale diiradda saari doona Soomaalida iyo Israa'iil wali xiriir ma yeesheen taariikhda ku soo dhawaada saaxiibayaal mawduuceena maanta sabtidii toddobaadkan waxay warbaahinta rasmiga ah ee Israa'iil ee lagu magacaabo Makan sheegtay in Israa'iil iyo Soomaaliya ay ka wada shaqeynayaan sidii ay xiriir u yeelan lahaayeen kadib heshiiskii xiriir ee hore u dhexmaray Israa'iil iyo dalalka Imaaraadka Carabta, Bahrain, Suudaan iyo wadamo kale. waa waxa afka Carbeed loogu yeedho at-tadbiic maca Israa'iil. Telefishinka kanaalka afraad ee Israa'iil ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo markii muddo xileedkiisa labaad dib loogu doortay hogaaminta Soomaaliya uu kulan qarsoodi ah la yeeshay saraakiil sarsare oo ka socda wadanka Israa'iil kuwaas oo ay ku kulmeen wadanka isu taga Imaaraadka Carabta inkasta oo aanu telefishinku sheegin faahfaahinna ka bixin kulankaasi iyo wixii lagaga hadlay. sidoo kale warbaahinno kale oo Israa'iil ah waxay sheegeen in kulankaasi Imaaraadka ka dhacay bishii hore dabayaaqadeedii dhammaanba waxaa xogahan meesha ka saaray afhayeenka xukuumadda Soomaaliya oo beeniyay xogtan sida warbaahinta Israa'iil sheegtay. waxa kale oo xogahani tabaxeen in sanadkii 2016 madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la kulmay ra'iisul wasaarihii hore ee waqtigaas ee xukuumadda Israa'iil Benjamin Netanyahu xilli uu booqasho ku mareeyay qaar ka mid ah dalalka bariga Afrika sidoo kalena uu qarsoodi ku soo maray waqtigaasi dalal Carabeed oo Suudaan iyo Imaaraadku ku jiraan. waraysi kooban oo telefishinka kanaalka afraad la yeeshay khabiir Israa'iili ah oo ka faalooda arrimaha Carabta lagu magacaabo Moshe Yizar ayaa waxa uu sheegay in kulamada qarsoodiga ah ee la sheegay in ay labada dhinac dhex mareen ay fududeysay xukuumadda wadanka isu taga Imaaraadka Carabtu oo uu sheegay in ay xiriir qoto dheer la leedahay Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo muddo xileedkiisii hore balse aanu caddayn karin kulamadaasi sababta ay xilligan ugu soo beegmeen mar labaad iyo faahfaahinta la xidhiidha kulan kale oo dhex maray sida uu ninkan Yahuudiga ah ku sheegay waraysigan khubaro iyo diblomaasiyiin labada dhinac ka kala socota waa Israa'iil iyo Soomaaliya. sanadihii la soo dhaafay waxaa soo baxay tuhumo dhowr ah oo muujinaya in fikradda tadbiic maca Israa'iil oo ah xiriirka Israa'iil ay dalalka Carabtu la samaysanayaan uu si hoose u fidayay iyada oo siyaasiyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya la sheegay in ay Imaaraadka kula kulmeen mas'uuliyiin iyo diblomaasiyiin kala duwan oo Israa'iiliyiin ah taasoo qasab ka dhigtay in wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya waqtigaasi si weyn u diiday in ay ka hadasho ama ay faahfaahiso iyadoo la xaqiijiyay waqtiga in shaqada laga ceyriyay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. kana waa Times of Israel oo isna muxuu yiri waxa uu yiri kadib doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud 15 bishii May Times of Israel waxay ogaatay in Xasan Sheekh Maxamuud uu muddo xileedkiisii hore booqasho qarsoodi ah ku tagay magaalada Tel Aviv isagoo ay la socdaan saraakiil sarsare waxa ay ahayd bishii Juun ee sanadkii 2016. Netanyahu ayaa la kulmay waqtigaas oo ahaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil. sarkaal ku dhow Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xaqiijiyay in shirka ay labada dhinac yeesheen uu ka dhacay magaalada Tel Aviv waxaana jira kulamo kale oo heer sare ah oo labada dhinac ay ku yeesheen goobo kala duwan oo kale kuwaasi oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin heer wasaaradood ah. labada dhinac waxay isla eegeen xiriir dhexmara labada dawladood oo khuseeya amniga, dhaqaalaha, ganacsiga iyo xog isdhaafsiga la xiriira dhinaca mukhaabaraadka. مسؤول Soomaali ah oo kulamadaasi ka qayb galay oo aan wax ka weydiinay buu wargeyskani natiijada kulamada ayaa diiday in uu faahfaahin ka bixiyo waxa uu nagu yiri ma doonayo
in aan ka jawaabo su'aashaada. gaar ahaan waxaan dhihi karaa inaan xidhiidh badan la leenahay dalal badan oo dunida ah, balse Israa'iil wax xidhiidh ah oo naga dhexeeya ma jiro. sidaas ayuu noo sheegay mas-uulka Soomaaliga ahi. baaritaanka la xidhiidha xaaladdan waxa aan ku ogaanay buuri wargeysku in Israa'iil xidhiidh ay Soomaaliya la samaysato ay u martay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ee xukuumadihii kala dambeeyey, gaar ahaan xukuumaddii xilligii Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddii ka dambeysay ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo u badnaa kuwo qurba joog ah oo sharciyo kala duwan ku leh dalalka Maraykanka, Ingiriiska iyo Kanada iyo dalal badan oo kale, kuwaasi oo gaar ahaan ay xidhiidh dhow leeyihiin Israa'iil. waa dalal saamayn ku yeelan kara fududaynta hawshan marka laga tago doorka Turkiga iyo Imaaraadka. kaasi waxa uu ahaa saaxiibayaal wargeyska Times of Israel. waxaa la isweydiin karaa waa maxay ujeeddada laga leeyahay xidhiidh diblomaasiyadeed oo dhex mara Soomaaliya iyo Israa'iil. wargeyska caanka ah ee Al-Qudus Al-Carabi oo arrintan faahfaahinaya waxa uu yidhi haddii arrimahani ay u dhacaan si xaqiiqo ah, waxaa hubaal ah in Soomaaliya ay ka jiraan mas-uuliyiin doonaya in ay ka dhabeeyaan xidhiidh lala yeesho Israa'iil. waxaana taas lagu macnayn karaa in inta badan mas-uuliyiinta sarsare ee Soomaaliya ay xidhiidh adag la leeyihiin dalalka reer galbeedka, gaar ahaan kuwooda deganaanshaha ku haysta oo noqon kara bridge isku xidhi kara xaqiijinta arrimahan. laba arrimood ayaa jira ayuu yidhi wargeyska Al-Qudus Al-Carabi. waa midda koowaade, markii ergeyga Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay uu ka gaabsaday inuu cod u qaado qaraar ay jaamacadda carabta u gudbisay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay oo lagu cambaareynayay go'aankii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku aqoonsaday madax bannaanida Israa'iil iyo weliba lahaanshaha buuraleyda Golan Heights ee Suuriya bishii March sanadkii 2019 ka hor intii aanu howlgalka ka laaban. waxayna go'aankan ku tilmaantay mid jawaab celin ah. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa u yeedhay wakhtigaas safiirkeedii u fadhiyay qaramada midoobay oo ku sugnaa wakhtigaas Geneva, waxayna soo saartay bayaan ay ku xaqiijisay in Golan Heights uu yahay dhul uu iska leeyahay dalka Syria iyo sida ay uga go'an tahay Soomaaliya mowqifka ay ka taagan tahay qadiyadda Falastiin iyo dhulka Carabeed guud ahaan ee Israa'iil haysato. arrinta labaad ayuu wargeysku ku tilmaamay in Israa'iil oo doonaysa in codka Soomaaliya muhiim u yahay marka ay timaado qadiyadaheeda la xidhiidha dhulka ay dalalka Carabta ka haysato iyo guud ahaan qadiyadaha ay ka damacsan tahay dalalka Carabta, kuwaasi oo marka la isugu yimaado ururada qaramada midoobay cod ay uga baahan tahay inay ka hesho. haddii aan intaas kaga nimaadno Al-Qudus Al-Carabi, bal hadda dhinaca kale aynu u gudubno warbaahinta lagu magacaabo Al-Mayaadiin. waxay faalo dheer oo ay ka qortay xaaladdan ciwaan uga dhigtay sidan: midhihii ka dhashay heshiiska Turkiga iyo Imaaraadka oo noqday in Israa'iil yeelato Soomaaliya. Al-Mayaadiin waxay faahfaahin ka bixisay doorka Imaaraadka iyo Turkigu ku leeyihiin xidhiidh Israa'iil la yeelato Soomaaliya oo ah kan hadalhaynta ugu badan dhaliyey. waxaanay warbaahinta Al-Mayaadiin warbixinteeda ku tidhi tan iyo wixii ka dambeeyey kacdoonkii loogu magacdaray Guga Carabta iyo kala qaybintii Suudaan ee loo kala saaray Suudaanta Waqooyi iyo Suudaanta Koonfureed, dalal badan oo Carabeedna ah ay mudaharaado waaweyni ka dhaceen, madaxdoodiina la afgambiyey. Soomaaliya waxa ay ahayd fagaare lagu tartamo marka la eego goobta istiraatiijiga ah ee ay ku taallo, hantida ku jirta dhulkeeda iyo deegaanka juqraafiyadeed ee muhiimka u ah dhinacyada ganacsiga iyo milatarigaba. saamaynta weyn ee Imaaraadka iyo Turkigu ku leeyahay Soomaaliya waxa ay keentay in dalkan dagaalada sokeeye muddada dheer ragaadiyeen, wakhtiganna ay ka jiraan duruufaha dhaqaale ee adagi uu noqdo mid ay xiisaynayso Israa'iil. si walba oo Israa'iil muddo dheer ugu hamiyeysay in ay saamayn ku yeelato dalalka bariga Afrika, gaar ahaan geeska Afrika, tani waa fursaddii ugu weynayd ee soo martay abid. sababtu waa Turkiga oo saldhig weyn oo milatari iyo safaarad aad u ballaadhan ka dhistay Soomaaliya, iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta oo siyaasi ahaan isna saamayn lixaad leh ku leh qadiyadda Soomaalida. dhinacyada amniga, sirdoonka, dhaqaalaha, waxbarashada, ganacsiga, siyaasadda, milatariga iyo howlo kaleba. intaba Turkiga iyo Imaaraadku waxay yihiin labada dal ee saamaynta ugu badan ku leh wakhtigan arrimaha Soomaaliya, waana fursad Israa'iil diiradda ku hayso. Imaaraadka iyo Turkiga ayaa saldhigyo ciidan ku leh Soomaaliya, waxaanay sidoo kale labadan waddan Soomaalida u tababaraan qaybo kala duwan oo ciidamada ah, gaar ahaan ciidamada militariga, kuwa sirdoonka iyo kuwa kale, iyadoo shirkadaha Turkigu ay aad ugu firfircoon yihiin ka howlgalka gudaha Soomaaliya. waxaa xusid mudan in 100,000 oo qof in ka badan oo Soomaali ah ay wakhtigan ku nool yihiin waddanka Turkiga, waxaana jaamacadaha dalkaasi ku jira 10,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo isugu jira haween iyo rag. Turkigu
waxaa la sheegaa in uu Soomaaliya u tababaray in ka badan ugu yaraan 30,000 oo askari oo kala duwan, waxaana xusid mudan oo ay Turkigu ku faanaan in ardayda waddankaasi wax ku barta iyo ciidamada halkaasi lagu tababaraaba ay noqdeen kuwa barta luqadda Turkiga. sidoo kale ciidamada uu Turkigu ku tababaro waxay ku gaashaaman yihiin hubka Turkiga. si kastaba xaaladdu ha ahaatee, waxaan shaki ku jirin doorka weyn ee ay Turkiga iyo Imaaraadku ka ciyaarayaan xiriir dhexmara Tel Aviv iyo Muqdisho, ay warbixinteedu ku soo koobtay warbaahinta caanka ah ee Al-Mayadin. si kastaba xaaladdu ha ahaatee saaxiibayaal, haddaba ilaa imika dawladda Soomaaliya waa ay diiday gebi ahaanba in ay wax xidhiidh ah dhex maray Israa'iil iyo Soomaaliya. taariikhda inta lagu hayo, Soomaaliya weligeed xidhiidh lama yeelan Israa'iil tan iyo wakhtigii xornimada kadib. xukuumadihii rayidka ahaa, xukuumaddii militari iyo maamuladii ka dambeeyey. dad badan oo Soomaali ahi waxay xasuustaan sanadkii 1967kii dawladdii rayidka ahayd ee Soomaaliya in ay Muqdisho isugu keentay dad badan oo Yuhuud ah oo siyaalo kala duwan ugu noolaan jiray wakhtiyadaasi gudaha dalka, kuwaasi oo diyaarada laga saaray Muqdisho loona dhoofiyey deegaamada ay Yuhuudi ku nool yihiin. magaalooyinka xeebaha ee Soomaalida ayay dad Yuhuud ahi wakhtiyadii hore ku noolaan jireen, inkasta oo tiradoodu aad u yarayd, kuwaasi oo u yimid dalka arrimo la xidhiidha dhinaca ganacsiga iyo isu socodka dadka. balse Soomaaliya marnaba xidhiidh lama yeelan Israa'iil. khubarada Soomaalida ee amniga ka faalloota qaarkood waxa ay ku doodayaan in haddii ay xaqiiqo noqoto xidhiidh ay dawladda Soomaaliya la yeelato Israa'iil, ay taasi albaabka u furi doonto in xarakada Al-Shabaab ay helaan dad fara badan oo ku taageera qadiyadooda, maadaama ay dad badan oo Soomaaliyeed aad uga soo horjeedaan in xidhiidh lala yeesho Israa'iil. shacabka Soomaaliduna ay ka mid ahaayeen shacab weligoodba garab taagnaan jiray qadiyadaha dalalka Carabta ee Israa'iil weerarka ku soo qaaday wakhtiyada hore.